xuutiyiinta oo xalay fiidkii sacuudigu markii ugu horreysay muddo dheer kadib uu weeraray ayaa haatan waxa ay bilaabeen in ay markaas dekeda weyn magaalada ee yumbuc ayay weerar ku qaadeen halkaasna waxaa ka dhacaya laleeyahay kala yaac ayaa ka dhacay dhinaca kale cabdiqaadir marka la eego maraakiib waatii laga gooyay habeenkii xalaytaa la soo dhaafay sacuudiga laba ah sacuudiga colays fara badan ayaa haysta maxamed bin salmaan Strait of Hormuz waa ka xiran yahay 4 milyan oo fuusto ayuu dekedan hadda la weeraray agaarkeeda uu ka dhoofiyaa marka haddii talona ay ka xirmato gantaalada xuutiyiintu meel kasta oo sacuudiga ka mid ayay gaaraan bal Tel Aviv ayay gaaraan kale Iiraan waxa ay sheegtay haddii kaabayaasheeda dhaqaalaha weerarku uu kusii socdo ayaduna inay dab qabadsiin doonto waase iyadoo hadalka u dhigtay waa Iiraan markaas goobaha biyaha lagu sifeeyo xarumaha shidaalka kuwa kaydka iyo ceelasha bariga dhexeba inay guri doonto kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada xuutiyiinta oo gubay markab uu leeyahay sacuudiga isla markaana toos u duqeeya dekada magaalada yumbuc ee dalka sacuudiga iyo weliba deegaanka jeesaan wararkii ugu dambeeyay iyo weliba xiisadaasi iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe oo qayb ay ka yihiin iiraaniyiinta oo saacadihii lasoo dhaafay iyaguna duqeyn raaxada kaga qaaday wadamo ka mid a khaliijka maxaa dhici doona Trump oo xaalka jiq uu ku yahay iyo weliba warar kale oo ku saabsan guud ahaan xiisada bariga dhexe qodobadan iyo kuwo kale oo aan idin qarinayo waxaan hordhigi doonaa isla markaana ila falanqayn doona rugcadaaga saxaafadeed ahna gudoomiyaha TV-ga faca weyn ee British Somali TV wariye Cabdixafiid Maxamuud Jaamac qadka ayuu toos ugu jiraa isagoo ku sugan xarunta TV-ga ee magaalada London Cabdixafiid soo dhawow Cabdiqaadir aad iyo aad kuugu mahadcelinayaa waana dhowahay adiga iyo dhammaan daawadayaasha waxaan jeclaa daawadayaasha inaan xasuusiyo inaan kuna dhiirigeliyo inay channelka rukuntaan wararkii ugu dambeeyey iyo barnaamijyo isdaba joog oo taxana ah oo up to date ayaad ka helaysaa waa mahadsantahay cabdiqaadir sidoo kalena waa ku mahadcelinaya waxaan la soconnaa xuutigu in uu gubay markab uu leeyahay ama uu duqeeyay markab uu leeyahay dalka Saudi Arabia dawladda Sacuudiga kadibna Sacuudigu waxay duqeeyeen magaalada Xudayda iyo waliba xuutigu oo si toos ah iyaguna ugu jawaabay waqti xaadirkan muuqaalkan duubaynana toos u duqeynaya magaalada Yumbuc oo ay ku taalo dekada ugu muhiimsan waqti xaadirkan iyo waliba magaalada Jeesaan haddii aad noo sharaxdid bal sidee bay ku bilowdeen qaabka markabka iyo waliba jawaabaha ay bixinayaan dagaalyanada xuutiga cabdiqaadir aad u mahadsan tahay haddii hadda arrinta taagan ee soo dhacday ee breaking newska aynu ku horeyno xuutiyiinta oo xalay fiidkii sacuudigu markii ugu horreysay muddo dheer kadib uu weeraray ayaa haatan waxa ay bilaabeen in ay markaas dekeda weyn magaalada ee yumbuc ama sacuudiga lafdhabarta ilishiisa dhaqaalo ah haatan maadaama hormuus uu ka xiran yahay ayay weerar ku qaadeen halkaasna waxaa ka dhacaya laleeyahay kala yaac ayaa ka dhacay inkastoo sacuudiga dowladdiisu ay leedahay halistii hadda waana dhaaftay laakiin xuutiyiintu inay markaa gurguriyeen ammaanka dekadaas iyo agagaarkeeda ayaa muuqata wax khasaaro hadda dekada soo gaaray oo la sheegay ma jirto maadaama warku uu cusub yahay laakiin xuutiyiintu inay soo weerar tegayaan waa la ogaa oo ay yihiin dad markaa mintida oo arag goosanaya kadib markii sacuudigu habeenkii xalay tahayd uu weerar ku qaaday oo weerarkaas uu la beegsaday markaas Xudayda iyo agagaarkeeda uu la beegsaday laba meelood uu ka weeraray oo aan markaas dowladda xuutiyiintu ay u arkayeen markaas weerarka lagu soo qaaday inuu yahay madaxin iyo iska taabashaah in laga falceliyana ay tahay waxaan kaloo ognahay sacuudigu inuu aad u taageero dowladda markaas cadan ka jirtay caalamka uu ictiraafsan yahay isla mar ahaantaasna xuutiyiinta uu kasoo horjeedo oo dagaalkii 2015 soo bilowday ay ku kala tageen dhinaca kale cabdiqaadir marka la eego maraakiib waatii laga gooyay habeenkii xalaytaa la soo dhaafay sacuudiga laba ah sacuudiga colays fara badan ayaa haysta maxamed bin salmaan Strait of Hormuz waa ka xiran yahay 4 milyan oo fuusto ayuu dekedan hadda la weeraray agaarkeeda uu ka dhoofiyaa marka haddii talona ay ka xirmato shidaalka sacuudigu meel uu mara ma helayo waxaa kaloo u furan in uu markaas Suez Canal dhinaciisa aado laakiin maraakiibtan waaweyn oo malaayiinta fuusto shidaalka wada ma mari karta halkaas oo waa meel ciriiriya marka waa in shidaalkaas maraakiib yar yar lagu qaado waqtigiyaa dheeraaday qaaritaankoodii dhoofitaankoodii meeshii loo waday iyagoo dhaqaalay ee shidaalkii uu cirka isku shareeray ayay tegayaan
maciishadii ayaa cirka ku dhegeysa culays fara badan ayay arrintan caalamka u keentay waxaana eedda ay wadamada carbeed ay ka saarayaan madaxdooda marka ay la hadlaan warbaahinta Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil oo iyagu Iiraan dagaal ku soo qaaday 28 bishii labaad ee sanadkan Cabdiqaadir. waa mahadsantaha cabdixafiid waxaan ognahay marka xuutigu inay haystaan gantaalo aad u khatar badan oo meelo fog gaari kara waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo aad u nugul oo sacuudiga leeyahay oo ay ka mid yihiin Aramco oo kale goobaha markaasi muhiimka ah dekada hadda adigo aad sharaxday ee Yumbu oo kale marka la eego waqti xaadirkan sacuudigu ma ka go'an tahay dagaal toos inuu la galo xuutiga ama uu ka qaado markaasi go'doominta saaran maxay u dhawaanaysaa aakhirka lagu kala tagayaa mise xiisadu waa ay qaraxday oo meel aan laga soo noqon karin ay taagan tahay laba aynu kala qaadanaa waa marka hore sacuudiga iyo imaaraadku horey ayay u weerareen iyagoo reer galbeedka ka helayay markaas taakulayn 2015 xuutiyiinta dagaalkaas wuxuu soo socdaba ayagii sacuudiga 4 sano heshiis ayay qaateen muddo ayaa la kala maqnaa maraykanka xilligii Joe Biden uu xilkayay dagaalka Gaza oo aad u socday sida waalan ayuu in badan duqeeyay xuutiyiinta waa ku guul daraystay inuu ka adkaado Trump ayaa yimid weeraro isdaba joog ayuu ku qaaday isla markiina wuxuu ogaaday arrintan inay tahay mid madhalaysa waa tii markaas dalka Cumaan uu la hadlay oo markaas ay saaxiibo yihiin dabadeedna halkaa heshiis uu ka yimid marka sacuudigu hadduu weeraro weel maran iyo weel buuxa hadday isku dhacaan kee ayaa khasaare qaba sacuudiga halkaas ayuu joogaa xuduudkooda oo dhan meelaha ilahiisa dhaqaalaha ay ku tiirsan yihiin weeye gantaalada xuutiyiintu meel kasta oo sacuudiga ka mid ayay gaaraan balad Tel Aviv ayay gaaraan oo aad iyo aad uga fog maxaa sacuudiga way daris yihiin xuduud ay leeyihiin aad moodaysaa marka sacuudiga dantiisu kuma jirto ayaa la leeyahay right now inuu xuutiyiinta dagaal baan ku qaado weerarkaana waxaa laga yaabaa ayaa la leeyahay inuu yahay markaas mid waabisa inay sacuudigu wax isku dayi karaan ay dagaalami karaan in lagu tuso bal inay markaas ay meeshaan furaan ama Iiraan ay la hadasho ay tiraahdo halkaa dagaal kale inaan ka furno hadda ma rabno intaasaa nagu filan ee maraakiibta sacuudiga soo daayay marka sacuudigu waa yool baaritaan ayay weerarkaanu ka tahay ayaa leeyahay dhanka kalena khubarada militarigu waxay leedahay waxaaba suurtagal ah in halkan dagaal kale uu ka qarxo oo arrintu ay markaas aad iyo aad u ballaarato oo ay faraha ka baxdo marka wax walba ayaa dhici kara laakiin danta sacuudigu at this moment in time waxay ku jirtaa inuu Iiraan la heshiiyo oo markaas Strait of Hormuz maraakiibtiisa ay halkaas ay maraan dhinacaas wixii u socday xuutiyiintuna ay markaa isbaaradan cusub ay sacuudiga keliya ay ugu talagaleen ay ka qaadaan dagaalkana sacuudiga uusan ku milminin soo socda Iiraan lagu soo qaadayo oo sidii istaraatiijiyadii markii hore uu qaatay uu sacuudiga uu ku ekaado laakiin Iiraan intaasoo kaliya dooni mayso Iiraan waxay leedahay haddii aad rabtid xuutiina kaala hadalno ama anagu Strait of Hormuz kaa furno waa inaad saldhigyadaada militariga Maraykanka cawda u jirtid hawadaadana aan laga soo weerarin shidaal adigu aan leedahay inaan loo soo marin marka arrin sahlan ma ahan sacuudiguna arrintaas waa og yahay xilli arrintii nuclearkii laga kala tuuray xaajaduna ay meel aan habboonayn ay marayso gobolkuna meel walba ay qiiqaysa Cabdiqaadir waa gartay xuutigu waxa uu degan yahay meel aad istaraatiiji oo aad runtii sharaxday waxaad ogtahay kayballo inay hoos maraan markaasi Babel Mandab ha noqdeen ama Strait of Hormuz ha noqdo markaasi haddii la jaro kayballadaas oo kale bariga dhexe iyo weliba guud ahaan caalamka saameyn intee leeg bay ku keeni kartaa adeegii internetka iyo weliba bangiyada iyo weliba marka waxyaabo badan oo muhiima oo kayballadaasi la shaqeeya saameyn intee leeg baa markaa ka dhalan karta burbur dhaqaale oo aan saameyntiisa laga soo kabsanaynin sanadyo fara badan oo soo socda ayay khubaradu saadaalinayaan billions lacaga ayaa marta kayballadaas iyo communication fartiimaha arkayso isku dirin hadda adu meeshaad joogtid iyo anigu meeshaan joogo kayballadaas la'aanteed fariintayda kuma soo gaari lahayn adna taari ima soo gaari lahayn soomaalida oo aad ugu tiirsan aababkan lacagta lagu kala dirsado oo dhaqaalahooda dhan uu ku salaysan yahay maxaad moodaysaa dhibaatada ka soo gaaraysa Babel Mandab ay xiraan doomihii imaan jiray maraakiibtii imaan jirtay Soomaaliya ayaa halkaas iyo Djibouti-ba ku xanimaya maciishadu cirka isku shareedha iyo caalamka guud oo saameyn weyn oo aan laga soo kabsan karin ay ku dhacdo
iiraanna arrintaas waa og tahay oo arrimaha ay gaarka u dhiganaysay ayay ka mid tahay xuutiyiinta ayay aad iyo sidoo kale gaar u dhiganaysay haatan xuutiyiintii ayay amar siisay inay sacuudiga culays saaraan ujeeddada sacuudiga looga dan leeyahayna waxaa weeye inuu washington la hadlo uu yidhaahdo duulaanka soo socda ka jooji iiraan donteeda kuma jirte marka sababtaas awgeed ayaa xuutiyiinta loo howlgeliyey haatan laakiin waxaa kaloo jira oo dadka qaarkood ay leeyihiin kadib markii jimcihii lasoo dhaafay dhowr maalmood ka hor sacuudiga uu duqeeyey airboortka sanca xuutiyiintii kasoo noqonayay aaskii ayatullaahi cali khameyni diyaaraddii uu duqeeyey ayaa arrintaas sabab ah laakiin waxyaalahaas oo dhan waa superficious waa waxyaalo sahla oo la fahmi kara laakiin arrimo waaweyn oo kale oo istaraatiijiga ayaa ka dambeeya oo ah dagaalka soo socda iyo saamaynta uu yeelan doono netanyahu doorasho khalaar ay kusoo socoto oo aad u danaynaya ibrahim akood iyo iiraan in lagu duulo sida wararku ay sheegayaan si uu markaa doorashadaas uu wax ugu noqdo ama meel oogaga soo baxo trump oo gudaha dalkiisii siyaasad aad iyo aad u guracan ka wajahaya taageerihiisii maalinba maalinta ka dambeysa raxano ay sii goosanayso inkastoo xayn yar ah oo die hard la yidhaahdo gar iyo gardarro wadata ay jirto laakiin markaad eegtay dadweynaha maraykanka aad iyo aad ayaa lagu soo horjeedaa ku darso cabdiqaadirow waxaa kaloo uu jira maalinta talaadada aan kusoo foolno toddobaadka soo socda netanyahu washington ayuu tegi doonaa sida ballanku uu yahay waxaana la aaminsan yahay waxa ugu weyn ee halkaa lagu karkarinayaa inay tahay laba arrimood oo keliya iiraan iyo dagaalka oo soo rogaal celiya sida wararku ay sheegayaan iyo arrintan ibrahim akood inta haatan sacuudiga meel walba dab kaga baxayo maxamed bin salmaan culays la saaro oo arrintan laga dhammeeyo laakiin maxamed bin salmaan albaab ayuu haystaa uu markaas u furan bal wuxuu haystaa laba albaab oo arrinta nuclearka uu kaga miro dhalin karo asagoo maraykanka aan u daba fariisanin marka maraykanku inuusan maxamed bin salmaan aad u bushgaraynin dantiisa ayaa haatan ku jirta xilli wadamadii khaliijka inuu difaaca uusan ama doonaynin ama awoodu ku difaaca maraykanku uusan lahayn balaayiin lacaga laga qaatay oo markaas agabkii military la siiyey ay isku difaaci waayeen bakistan ayay hadda kuwait baryaysaa oo leedahay naga soo gaar baxrayn ay baryaysaa ciidamo diyaarado iyo markaas gantaallo aan isku difaacna naloo keena ay leeyihiin marka sacuudigu wuxuu arkaa maanta maalin uu trump ogaga baahi badan yahay sacuudiga inuu taageero ka helo ma jirto marka inuusan sacuudiga bushgaraynin dantiisa ayaa ku jirta haddii kale ruushka iyo shiinaha ayaa sacuudiga shukaansi kula jiro ah leh balaayiintan lacagta ah ee lagugu samaynayo nuclearka waa dhinaca ruushka bushayra annagaa samaynay hadda turkigaan mid u wadnaa lacagtaas mid ka yar ayaanu kugu samaynaynaa iyo wakti ka kooban wax shuruudan kugu xiraynaana ma jirto waa adiga iyo caalamka albaabkaas maxamed bin salmaan waa u furan yahay trump inuusan juqaynin maxamed bin salmaan dantiisa ayaa ku jirta shiinaha ayaa jooga oo sacuudiga ay aad isugu fiican yihiin oo intaa iyo in ka badanba diyaar oola ah isla mar ahaantaana shidaal ka iibsada marka trump waxaa la leeyahay waa qariska tuur oo haba gidaar ayuu madax kaga soo jarayaa frustrated ayuu noqday xaaladda ayaa ku adag marka marba mid tijaabi ayuu leeyahay laakiin nin istaraatiijiye haysta go-aan leh hadaf lama lahan hadda meeshuu joogay waa ka guuraya daqiiqada ku xigta waxaanu moodaa ninkii inuusan ahayn magabaldaya waa la garan layahay cabdiqaadir waa mahadsan tahay daawadayaal wixii wararee kusoo kordha xiisadda sacuudiga iyo weliba dagaalka xuuti insha allah wararkeena dambe ayaad markaa kaga bogan doontaan iyo duqeymaha iyo weliba xiisadda hadda taagan haddii aan u gudubno cabdixafiid waxaa trump uu isagu diyaaradihiisii kusoo daabulayaa kuwa shidaalka qaaday iyo kuwa kale ee duqeymaha geystaba bariga dhexe isagoo doonaya mar kale weerar ballaaran inuu ku qaado dalka iiraan iyadoo iiraanna waxay duqeynaysaa qeybo badan oo wadamada khaliijka ka mid a saldhigyo badan bay duqeysay trump 2 jeer ayaa dharbaxa ku dhacday ha noqoto tii hormuus howlgalkiisii iyo dagaalkii 40kii cisho haddii uu kuwaana qaadan waayey oo hadda dagaal kale uu isagu soo markaa wado maxaa la filan karayaa oo dhacaya markaa ma dhici kara cabdiqaadir waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan laakiin marka hore dagaalka uu soo qaadayo hadaf ma leeyahay oo dagaal uu ka miro dhalin kara ma yahay wuxuu trump awood u leeyahay in badan oo iiraan ka mid ah haddaysan kulligeedba ahayn inuu dambas ka dhigo awooddaas military trump waa leeyahay
laakiin waxa laga hadlayo ee iiraan lagu bartilmaameysanayo ma ahan waxaanu burburinay aerobooro iyo buundooyin baanu burburinay shacab birmageedana waa laynay haddii intaasu ay dhacdo mar saddexaad oo haddana dowladdii ay fashilmi weydo oo markii mid laga dilo oo laba laga dilo 10 kala booskoodii ay gelayso iiraan waxay kasii qaadaysaa ayaa leeyahay arrintaas dhiiragelin iyo markaas laba qubadoodoo waaweyn inay markii saddexaad ay kusoo duuleen bannaankana ay iska marisay ama ugu yaraan ay badbaaday marka iiraan iyadu inay badbaado weeyaan hadafkeedu maraykankuna waa inuu guulaysto si uu ku guulaysan karaana ma cadda marka la eego gacanka hadalka iyo cadaadiska military iyo duqaynta isdaba joogga khubarada militariga oo dhan oo qaarkood iiraan ay laga soo horjeedaan waxay leeyihiin dagaalku waa madhalays trumpna kuma guulaysanayo bal waxaynu xog ku haynaa militariga maraykanka iyo sirdoonku inay u sheegeen Donald Trump oo la yiri hadaf military oo halkan ku haray ma jirto intay goor tahay cut your losses khasaarahaaga soo afjar ama isku caano shub adigoo guul sheego oo iiraan waa burburiye leh oo dowladdeedii waa bedelo odaygii baan dilay leh ama si kale wax u maaree oo iiraan wax u ogolow sidaasna ha lagu kala tago hormuusna dib ha loo furo ama guul darro iyo geeri iyo burbur iyo sumcad darro martigeli oo liiska ha kuu gasho taariikhda inaad iiraan madaxweynihii horreeye ku duushay aad tahay haddana ku guul daraystay guulna ka keeni waayey oo diiwaanka taariikhdaada ha kuu gasho marka Donald Trump inuu soo rogaal celinayo badankiisa khubaradu waxay leeyihiin shaki kuma jiro waxaana caddeyn u ah saad sheegtayba diyaaradaha KC 130 la yiraahdo waxa kale oo ka mid ah inuu markaas diyaarada cusub oo F-35 uu keenay B1kii uu keenay oo duqeynta ay ka qayb qaateen aga military badan halka uu kusoo daabuleynayo waxaasoo dhan waxay daliil u yihiin in uu dagaal uu soo socdo iyo socdaalka Netanyahu in yaraan kuugu daro socdaalka Netanyahu laftigiisa Axios waxay qoraysaa in ay tahay markaas arrin farsamo ah oo Iiraan inay isdhigato ay istiraahdo nimankii waa shirayaan intay shirayaan weerar layn kuma soo qaadayo dabadeedna Iiraan la miro saqda dhexe laakiin Iiraantu tii hore ma ahan 2 jeer baa god laga qaniinay habeen iyo maalin waa soo jeedaa oo way og tahay in lagu soo socdo isdhigan maysa ayaa la leeyahay Cabdiqaadir aad u mahadsan tahay 13 cisho ee la soo dhaafay duqeymo xoogan waxay ka dhacayeen deegaanada xeebta qaarka qishim iyo waliba kuwa kale oo la doonayay in marinbiyoodka Hormuz gacantooda laga saaro Maraykanka muxuu horumar u ka sameeyay 13 cisho si uu gacanta Hormuz uga bixiyo Iiraan marka aad dhageysatid Maraykanka madaxweynahooda wasiirkooda gaashaandhigga waxa ay sheeganayaan guulo waaweyn ayaanu gaarnay Iiraan waa wiiqnay cududeedii military haddana meeshii xalay duqeeyeen baa caawa laga soo weerarayaa isla meeshii marka jugjug meeshaada joog weeye Strait of Hormuz si kastoo Trump uu yiraahdo anaga haysana xaqiiqadu waxay tahay wararka caalamkuna ay sheegayaan meeshaas Iiraan ayaa ka talisa gacantana ku haysa haatan marka waxa natiijo ah oo duqeyntii ay keentay oo aan ahayn inay meelo gaar ah ay bartilmaameedsanayeen haddana isla meelihii laftigooda laga soo weerarayo maahana hadda waxaas ay ku guulaysteen aynu oran karnaa ma jirto laakiin marka la eego khasaaraha Iiraan soo gaaray haddii aan lahayd buundooyinka haddii aan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha la burburiyey khasaare ayaa soo gaaray laakiin dhanka kale Iiraan waxa ay sheegtay haddii kaabayaasheeda dhaqaalaha weerarku uu kusii socdo ayaduna inay dab qabadsiin doonto waase iyadoo hadalka u dhigtay waa Iiraane markaas goobaha biyaha lagu sifeeyo xarumaha shidaalka kuwa kaydka iyo ceelasha bariga dhexeba inay guri doonto saacadihii lasoo dhaafayna shirkadda Amazon ayay weerar ku qaaday xarunteeda Bahrain ku taala oo ah markaas xarun data center analysis ah oo aad iyo aad muhiim ah Iiraan waxay sheegtay in ay markaas sirta ay u xuraabinayaan waase hadalka u dhigeen dowladda Maraykanka waxayna sheegeen inay digada ka dhigeen gebi ahaan waa ka baxay waa gartay aad iyo aad u mahadsan tahay Iiraan 49 cisho oo dagaal ah 12 cisho haddana duqeymaha xabajoojin u dhaxaysay markaasi ilaa hadda Iiraaniyiintu dhankoodu ha sii jireen oo ha joogeen qasaarana ha gaaro laakiin Maraykanka iyo waliba Netanyahu wax natiijo oo marka aad u weyn waxa muuqata inaysan ka hoynin marka inay ka soo hoynin adiguba sidaas sharaxday marka
wadamada khaliijka waxay noqdeen kuwa ugu badan ee khasaaraha ka soo gaaray marka laga hadlayo Kuwait iyo Bahrain Kuwait koronto la'aan ayaa waqtiyada qaarkii laga hadlaya meelo nugul waliba meelo lama degaan ayaa lagu tilmaamaya iyadoo la ogyahay goobaha biyaha macaaneeya ama biyahoodu inay ku tirsan yihiin markaas biyaha la macaaneeyo markaa ma arkayaan khatartaasi Iiraan haddii la duqeeyo inaysan ka labalabeynaynin haddii se arkayaan hogaamiyaashoodu tallaabadan iska tuurnimada u muuqata maxay ku doorteen khasaaraha ugu badan waxa uu hadda soo gaaray wadamada khaliijka meelihii fasaxa loo imaan jiray iyo dalxiiska shirkadihii maalgashan jiray intuba meel aan lagu soo hirin karin ayay noqotay oo ammaankooda aan la xaqiijin karin oo maalgashiga iyo dalxiiska waxaa gundhigu ah ammaan inuu meeshaas ka jiro haatan meel ammaan ka jiro ma jirto markaad eegtid gaar ahaan Kuwait iyo Bahrain aad eegtid Jordan ayada warkeedaba iska daawaabudo gaar u tuman duqeyntaas isdaba jooga ayaa ku socota marka waxay u arkaan in markaas ammaankoodiina la gurguriyey dagaal ayagoo aysan mas-uul ka ahayna loo keenay danahoodiina markaa la burburiyey iyo dalkoodii Maraykanka ayayna farta ku fiiqayaan oo haatan ay kalarka ku dhagan yihiin laakiin markay hadlayaan si public u hadlayaan cidda ay cambaaraynayaan waa Iiraan weeye laakiin dagaalkan hadduusan soo qaadi lahayn Trump iyo Netanyahu wadamadan sidaas ma aysan noqon lahayn Iiraan waxay leedahay annagu wadamadan walaalaha aan nahay waa si hadalka u dhigeene colaadna nagama dhaxayso weerarna kuma nihin laakiin gurigoodii baana laga soo weeraraya xaqna waxaan u leenahay iyagoo la jeeda saldhigyada militariga Maraykanka xaqna waxaan u leenahay inaynu markaas aynu ka cadgoosano iskana difaacno weerarna aynu ku qaadno marka arrimo fara badan ayaa isdul saaran laakiin wadamada khaliijku hadda waxa ay ku guda jiraan inay samaystaan dhaba kale oo hormuus u bedela oo ay kulligood dhaqaale ay ku wada shubayaan imaaraadka oo la doonayo in dib loogu soo celiyo saaxada oo go'doon dhawaayahan ku jiray tan iyo intii dagaalkan uu bilowday iyo weliba inay ku tashtaan inay samaystaan difaac markaas ayaga u gaara iyo ciidamo isku dhafan oo markaas dowladda dalka Turkiga iyo weliba dowladda dalka Pakistan ay dhinaca militariga iyo dowladda Masar ay intuba ay ka qayb qaadanayaan meesha wadamadan kalena ay dhaqaalaha bixinayaan Cabdiqaadir ugu dambeyntii Trump wuxuu doonayaa isbahaysi inuu helo oo dowladda Ingiriiska mar kale isku dayay inuu markaa ka dhaadhiciyo sidii dagaalka uga qayb qaadan lahayd hadda wuxuu sheegay inuu isbahaysi sameynayo ma ku guuleysan doonaa in markaas xulufo uu helo si Iiraan markan uu awoodeeda u weeqo toddobaadkii soo socda halkan waxaa ka dhacaya shir aad iyo aad u ballaaran oo Maraykanka iyo Ingiriisku ay uga shirayaan sidii markaas Strait of Hormuz loo furi lahaa dowladda Ingiriisku mowqifkeedii ra'iisul wasaarihii haatan xilka laga qaaday toddobaadkii lasoo dhaafay bilowgiisii laga qaaday uu jiiday inuu dagaal toosa uu ka qayb qaato laakiin wadamada Carbeed iyo danaheenaba waa difaacina ayuu yiri NATO inteeda kale cid usoo dhaqaaqday Donald Trump malahan marka waxaasoo dhan waxay ku tusayaan arrin kale oo weyn oo qarsoon oo inta badan aan laga hadlaynin oo ah Donald Trump in uu August soo dhaafay uu madaxweyne Putin uu kula kulmay Alaska si weyn uu usoo dhaweeyey isla mar ahaantaasna uu araxda ka jabshay wadamadii dagaalka kula jiray ee Ukraine taageerayay markaas Yurub oo Jarmalka Ingiriiska iyo Faransiisku ay ugu tunweyn yihiin marka dagaalkaas ayuu uga baxay hubkiina wuxuu yiri waa idinka iibinayaa Joe Biden oo markaas si bilaash u siin jiray wadamada NATO ku jira si Ukraine ugu taageeraan marka dagaalkaas ayaa nooga baxday hubkii ayaa naga iibisay Greenland ayaa tiri waa qaadanaya oo xoog ayaa ku goosanaya marka aad iyo aad ayaa loogu kacsan yahay waa nin aan markaas sumcad fara badan aan lahayn taageero aan haysanin aan la qiimeyn karin madaxda caalamka waa la qaybiyaa waxay galaan iyo waxay gudaan sidaas awgeed at this moment in time ima muuqato dowladda Ingiriiska oo ka feer dagaalamaysa Maraykanka iyo Strait of Hormuz dowladda Ingiriisku waxyaalaha ay aadka ay ugu fiican tahay waxaa ka mid ah soft power inay markaas daah dabadiisa arrinta laga dejiyo siyaasad wax lagu xalliyo waana waxay aad iyo aad u aaminsan yihiin kuna soo caalamaaleen muddo dheerba isla mar ahaantaasna Iiraan baaba ayaga hadda u hanjabtay oo tiri dagaal baan kusoo qaadaynaa oo aan soo weeraraynaa oo saldhigyada militariga oo dhan waxaynu ku qaadaynaa dagaal Ingiriiskuna wuxuu yiri 24 saac heegan ayaan idinku jirnaa
waxaad haysaan soo daayay laakiin waxaasoo dhan waa rhetoric weeyaan iyo hadallaha wada la isku marinayo laakiin ma arko maraykanka oo ingiriiska oo maraykanka ka feer dagaalamaya oo hormuus inuu furo isku dayaya ma arko if anything waxay u badan tahay in lagu yidhaahdo maraykanka waa daashay annaga noo kaadi hawshan ay nooga dambe laakiin Trump nin yeelaya ama la xakamayn kara ma ahan waana waxyaalaha wax qasaya oo markaas dhibaatadeeda wata marka waqtiga ayaa macalin dhihi karnaa ogaan karnaa wax walba waa suurtagal laakiin hadda ima muuqato dowladda ingiriisku inay rabto inay dagaalka qayb qaadato hore ayay u diiday aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha tv-ga faca weyn ee British Somali TV mudane cabdixafiid maxamuud jaamac oo isagoo qadka toos ugu jiray isla markaana isagoo ku sugan xarunta tv-ga ee magaalada London toos igu warramay cabdixafiid waa mahadsan tahay cabdiqaadir guuleyso ku mahadcelinaya mar kale daawadayaal idinkuna waan idiin mahad celinaynaa sida qiimaha badan aad ugu xirantihiin janalka waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaaladeena aad like saartaan oo aad subscribe dhahdaan si muuqaalka ama janalkaba uu koristiisa aad uga qayb qaadataan muhiim ayuu yahay daawadayaal meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay maalin wanaagsan